رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. dhammaan xubnaha deegulaha wasiirada halkan jooga, agaasimayaasha guud, ganacsatada iyo bahda aqoon-yahanka, howlwadeennada madasha, waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa goor gaaban, hadalkeedna gaaban, runtii waqtigu waa kooban yahay, badin maayo. waxaan isleeyahay sessionka soo socda ee maalgashiga ka warramaya iyo warshadaynta waxa ka jawaabay baahidiisa sessionkii imika xidhmay baa ka jawaabay. oo sessionkii imika xidhnay inantii ugu dambeysay su-aalahayna weydiinaysa waxaa ka mid ah miisaaniyadda sidii loogu kordhin lahaa, sidii beeraha loo horumarin lahaa, sidii arrimahaas ayna weydiisay. dhammaanteedna waxaan macnaha ku qanacnay miisaaniyad ahaan iyo qaran ahaanba in dhaqaale ku filan oo imika aagga iyo sektaradaas oo dhan oo bannaan lagu wada daboolo inaan magaranaysaa loo hayno oo aan imika diyaar ahayn. taasi marka waxay keenaysaa daruurada iyo baahida ah in aan helo maalgashi in la helo ayay keenaysaa. marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in kasoo qaybgalayaasha iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya in ay keeni doonaan afkaar iyo talooyin ku qotoma baahida taala ee uu soo daah furay ama uu soo jeediyey sessionkii imika xidhmay inaga horreeyey. waxaan doonayaa inaan soo koobo oon ku koobo laba su-aalood. labada su-aalood ku koobaya waxa weeye sessionku xooggiisu wuxuu ka hadli doonaa haddii la idhaahdo waxa la idhahda FDI-ga ama Foreign Direct Investment wax loo yaqaano. markaa ma u baahannahay? waay su-aashu waxa weeye ma u baahannahay inaan maalgelin ka helo dad shisheeye ah? ma u baahannahay inaan dhaqaale ka helo dad shisheeye ah, dowlado, shirkado, ganacsato, ashkhaas macnaha waddanka dibaddiisa ka yimaada oo maalgelin ku sameeya? su-aashu waxay leedahay ha. waxaan kusoo koobayaa 4 qodob ayaan jawaabta ku koobay. 1 FDI-ga waxa la idhahdo ama Foreign Direct Investment dhowr arrimood baa ayaa laga helaa. 1 waxaa ka mid ah inaan ka helo wax la idhahdo hanti ama capital, lacag. marka markasta qof kasta oo yimaada iyo shirkad kasta oo waddanka timaada oo doonaysa inay maalgashi samaysaa waxay la imanaysaa lacagteedii, xoolaheedii bay la imanaysaa. marka waa source of capital, waa meel xoolo iyo hanti aynu ka helayno, maadaama oo wixii aynu inagu dhaqaalahaynay uu sidaa imika laga warramay iskugu sargo-an yahay inaan helo markaa meelo dheeraada oo dhaqaale aan ka helo. waxa kale oo iyadna ay tahay in foreign direct investmentka waxyaabahan ugu baahannahay waxaa ka mid ah cid kasta iyo shirkad kasta oo timaada oo waddanka timaada oo soo gasho oo maal gashanaysa lacag uun keliya ma keento. lacag keliya iyadoo wadda uun ma keento. waxay keentaa wax la idhahdo technical expertise ama khibrad bay keentaa. marka khibraddii alahayd DP World waa shirkad ka mid ah shirkadaha waddanka maal gashaday. dekadda iyo horumarinteeda iyo farsamadeyna iyadaa la timid oo marka aqoontiina way wadataa, way keentay. waxyaabaha kale ee faa'iidada la ah ee uu leeyahay FDI-gu ama Foreign Direct Investmentku waxa ka mid ah waxa la yidhaahdo know how ama knowledge transfer. khibradda iyo aqoonta ay dadkaasi wataan maalgashadayaashaasi dibadda ka imanaya waxay dhaxal siinayaan dadka muwaadiniinta ee reer Somaliland. dhalinyarada iyo aqoon-yahanka iyo farsamo yaqaanada reer Somaliland baa ka dheeganaya kana faa'iideysanaya aqoontaas oo ka heli kara. arrinta ugu dambaysa afraad ee aan odhanayo waan u baahannahay inaan maalgashi shisheeye helo, aan ugu baahannahay waxa ka iyadna ay noqonaysaa in uu yahay foreign direct investment waxa loo yaqaano waa source of hard currency wax la dhaha waa lacagta adag ama foreign currency wixii loo yaqaano.
saaka doodihii iyo khudbadihii halkan laga soo jeediyey wasiir sacad khayr allaha siiye khudbadiisii wuxuu aada ugu dheeraaday sida ay isugu magaranaysaa dheelitiri laayiin lacagaha baxaya waddanka ka baxaya iyo kuwa soo galaya marka FDI wuxuu noqon karaa meel ay lacag iyo xoolo ku soo galaan waddankii oo lacagtii adkeyd ee waddanku ugu baahnaa ay ku soo gali karto ayuu noqon karaa afartaa arrimood waxaan isleeyahay waxay ururin karaan sababta aan ugu baahannahay iyo wayda aan ugu baahannahay inaan helo FDI wax loo dhan waxaan u tegayaa qaybta kale ama sectionka labaad oo ah manufacturing qaybta wax soo saarka iyo in wax la farsameeyo su-aal baan iyadna ku bilaabay oo ah ma u baahannahay inaan wax farsamayno ma u baahannahay inaan warshadayno ma u baahannahay inaan wax soo saarno waa jawaab fudud oo aad idinku dhammaantiin wada haysaan oo ah haa waan u baahannahay sababtu maxay tahay kow waxaa arrinta ugu muhiimsan ee keenaysa in wax la farsameeyo waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa sideedaba whole versus retail wax dhammaystiran oo isku qoofalan wuxuu kasoo horjeedaa wax furfuran oo faahfaahsan tusaale ahaan hadda xoolihii baa laga warramayay neefka xoolaha een halkan ka dhoofinaa wuxuu inaga tagaa isagoo iswada wata laakiin haddii aan halkan warshad farsamaysa oo hilibkii qasha oo lafta ka saarta oo ludda ka saarta oo haragga ka saarta oo haraggiina gaar u iibisa intii neefku wuxuu laba jibbaarayaa faa'iidadiisii iyo dhaqaalihii kasoo xiroonayayba intaasoo jeer buu kor u kacayaa marka inaan gudaheenna iyo waddanka gudihiisa wax lagu farsameeyo waa waxyaa qodobada koobaad ee qodobka koobaad ee ugu baahannahay weeye qodobka labaad waxaa la yidhahdaa waa value addition waa la tilmaamay iminkana waa la tilmaamay haddaan wax row ah iminka soo qaadno oo aan halka soo qaadno tusaale ahaan haruurki waa inaga iminka sessionka kaga hadlayay iyo galeydii la beeranayay iyada oo sideeda ah haddaan dirno iyo haddaan daqiijinno oon baakeed garayno oon wax ku darno oon samayno waa manufacturingkii iyo wax soo saarkii iyadna value addition waxbaan ku darnay qiimihii ay goosan lahayd markii ay xubuubka keliya ahayd ma goosanaysa way ka qaalisan tahay faa'iido weyn bay leedahay qodobka labaadaan islaahay waa loogu baahan yahay in la helo in wax lagu farsameeyo waddanka gudihiisa waxaa la odhan karaa wax la idhaahdo in wuxuu kor u qaadayaa oo uu dallacayaa uu kordhinayaa uu korinayaa waxaa la idhahdaa wax soo saarka guud oo uu ka hadlayay maanta saaka wasiir sacad khudbadiisa kusoo qaatay waxaa la idhahdaa national productivity wax soo saarka guud ee qaranka wax soo saarka guud ee qaranka mar kasta oo warshadaheenna iyo farsamaynteenu guduhu badato wax soo saarkeennuna uu kordhay GDP-geena kor u kacaya waxyaabahaas oo dhan baa ayaa qayb ka noqon waxaa qodobka afraad aan kusoo xidhayo waxa weeye job creation waayo shaqo abuur meel kasta oo aad warshadihii way joogaan maanta dee ururkii warshadleed way idinla joogaan oo qayb bay ka yihiin magaranaysaa shirka laakiin warshad kasta oo waddanka ku taalla maanta waxaan hubnaa inay intaasoo dhallinyaro oo reer somaliland ayaa u shaqaysa oo ka heshay meel ay u shaqo tagaan iyo shaqo abuur ka heshay afartaa qodobna waxaan isleeyahay iyaguna waxay jawaab u noqon karaan sababta iyo baahida taalla inaan wax soo saarno ma doonay inaan waqti badan qaato sessionkan inoo furaya uun waan kusoo dhaweynaya kolley panelka wax badan oo aad ka faa'iidaysiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu